noloshu qaabka ay u dhisantahay oo dhammi baan leenahay waa qaab ku salaysan alibtilaa nolosha fahamkeeda xaqiiqiga ahi wuxuu yahay inuu qofku garto xayaatada adduunyo inuu u joogo in la itixaamayo inaad ku raaxaysanayso iyo inaad ku barwaaqaysato maaha nolosha adduunyo waxaa loo jooga ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaame inaad la kulmayso oo aad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo si imtixaanka bini aadamka loogu dhammaystiro ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka wuxuu ku abuuray jawaanib caatifiya jawaanib shahwaaniya waxaa lagu abuuray qofka bini aadamkii xoolo jacayl boqortooyo jacayl sultaannimo jacayl waxyaabahaasoo dhan waxaa bini aadamka lagu dhex nooleeyey nolol loo sakhiray oo loo fudaydiyey qofka bini aadamka waxaa alle subxaanahu wa tacaala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi kara dhibta gaajada xanuunka murugada baqaha tiraanyada werwerka waxaasoo dhan inuu dareemo waxa kaloo nolosha laga yeelay waxaasoo dhan wax ku sababi kara inuu baqo tiraanyoodo werwero murugoodo waxaasoo dhan wixii sababi lahaana isaga waxa laga dhigay inuu qaabiliya inuu leeyahay waxaas inuu dareemo kownka dhammaantiina waxa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo